waxaan rabaa marka inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo sheekheena macalinkeena Sheekh Cusmaan Abubakar Cusmaan oo inoo bixin doona dardaaran ku saabsan nikaaxa iyo sidoo kale qoyska dhismihiisa iyo wixii markaas tiirka u ah waxaan leeyahay sheekh soo dhawow. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. waxaan rabaa dardaaran inaan u soo jeediyo saddex qolada koowaad waa dadku ilaah ka soo qayb galay xafladan sharafta leh iyo qof kastoo muslima oo maqli doona kelimadan. dardaarka labaad waxay ku aadan tahay wiilasha guursanaya hadda raba inay guri dhistaan iyo qof kastoo xaas leh. tan saddexaadna insha allah gabdhaha la guursan doono ayagana wixii la gudboon anaan dhahay insha allah. haddaan ku hormaro dardaarta caamta ah waxay tahay tii ilaahay noo dardaarmay haddaan nahay bini aadam. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanku ku sheegay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah. allah wuxuu leeyahay waxaan u dardaaranay oon amarnay ummadihii idinka horreeyey kitaabka la siiyey alyahuud wanasaara iyo idinkaba inaad ilaahay ka cabsataan. marka dardaar laysu dardaarmo tan ugu qiimaha badan waa ilaahay ka cabso. maxaa yeelay kelimadaas kelima sahlan ma aha, inkastoo dadka ay aad u liidaan ay dhahaan wacdi wadaad wuxuu ku soo gagoobaa ilaahay ka cabso ayagoo markaa ula jeeda yacni kelimad aad u liidan inay tahay sax ma aha. kelimadaas haddii aysan qiimo lahayn suubana calayhi salaatu wasalaam ilaahay ma dhihi lahayn yaa ayuha nabiyu ittaqillaah. qur-aankay ku jirtaa nebi oo ilaahay ka cabso. ilaahay ka cabso qofka ugu dhahay kuma caayin meel kaagama dhicin, wuxuu ka shaqeeyey dantaada. waxaa ilaahay ku amray sameey wixii karaankaaga, wuxuu ilaahay kaa rabay ka har, intaas waaye ilaahay ka cabsi la sheegay wax kale maaha. waxbuu ilaahay ku amray waajibaada ku saaran gudo, wixii ilaahay kaa rabay muxaramaad lagaa rabayna ka har. arrintaas qof walbaana u baahan ciroole iyo dhallinyaro rag iyo haween qof walbaa u baahan ilaahay ka cabsado. maxaa yeele waxaa ku xiran guushiisa adduuniya aakhira ku xiran. asacaadatu fi dunya wal aakhira waxaa lagu gaaraa taqwa allah. meesha haddaan kaga gudbana suulka koowa insha allah waxaan rabaa wiilashay maanta lagu caqdi doono halkan inaan ayana u dardaarmo xadiiskii nabiga calayhi salatu wasalaam maalintii xajul wadaac oo nabiga uu u dardaaray ummaddiisa waxaa ka mid ahaa uu dhahay istawsuu binnisaa'i khayra fa ina almar'ata khuliqat min dilacin acwaj وإن أعوج شيء في الضلع أعلاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث متفق عليه وهي وحيث وافق الإمام البخاري الإمام مسلم نبي حداه قبلها خير قدر دارما قفل بقفل قدر دارمو إنه قبلها أصحاب سمايو وأنا كردقو محيلي قبله حلقة أبو ريفير قالوا عن معناه حلقة قبلها عن سكستو أدي أدرقنتو بقول كي بقول مكون قريسو إلهي بكو أوري قالوا عنانتاس طبيعة قلب سنان إني قرور عضو وحشة شاكتو وحصو على يروع إنا تكين الله وطو وحكال وين أيكو هيسا جيرو إنا تفيريسو قفك مؤمن كان قف مؤمن مفر نعاب سيد رسول الله شاكي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر قف إيمان له قف قبر كلا مؤمنة من نعايو هدي ميلو كوكاهلو وهو كنا هيسو ميل كلا يكوفي عنتهاي margabdhaha ilaahay wuxuu ka abuuray qaloocanaan saas inuu haystaa la rabaa. haddaadan waa toosina inaad fursad leh waa kala tagtaan gurigu dudumo. margabdhaha wiilis waxaan leeyahay dabeecadaha gabdhaha ilaaha noo sheegay saasay ku abuuran yihiin. sidaa ku istimtaaca ku haysa wanaagga kale ay ku haysaa ka badan daba fara badan bay ka haysaa. dabkay jikada waa dab kulayl waaye, shahwadaada dab kulayl waaye, wax badan ka haysaa oo aad maanta aad dhibaata kugu hayo. marka taas laga fiiriyo yaan la tirsanin maana taa saas dhigi karta iyo taa macna saas adhihin waa waxay u tahay gabar bay u tahay ilaahay baa saas ku abuuray haween waay qalooceeda lagu haystaa saas lagu dhaqaa saas lagu imaadala wanaaga iyo khayrka imaanaya ka badan. waxaan ku soo gabagabeynaa marka gabdhaha laftooda inaan u dardaarmo oo xadiiskii Abu Hurayra oo ahaa Abu Daawud soo saaray rasuulka calayhi salaam wuxuu leeyahay إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها يقال لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
oo kama qaal alayhi salaatu wasalaam haddii gabadha ay shanta waqti salaada ay tukato ilhaliso bisheeda ramadaan ay soonto cawradeeda farjigeeda xumaanaysan ay ka ilaaliso ninkii qabayna ay warkiisa yeesho adeecdo albaabada jannada sideeda mid laga cilay ma jirto waxa leeyahay udkhulil jannada gal meesha doonta ka galaan leeyahay margabdhaha waxaa rabaa igana jannada waxay u jirtaa intaas afartaas xuquuq ay gudanayaan inay salaadaha ku dadaalaan gabdhaha salaad aad ugu liitaan inay salaadaha aad ugu dadaalaan bisha ramadaan waa sanadka hal mar waaye inay soonto farjigeeda xumaan iyo zina iyo xumaan ay ka ilaaliso kadibna ninka qaba ay warkiisa ay aad maartay u yeesho u dhaganugulaato ay ka amar qaadato inta haddii laga helo insha allah waxay ka mid tahay dadka jannada ku gala xisaab la'aan iyo cadaab la'aan intaasaa rabay inaan baraarujiyo wixii aan saxay ilaahay baa i waafajiya allah ku maadsan wixii aan qaldayna waa nafta iyo sheedaa ilahay beri buu ka yahay haadaa wallahu subxaana wa tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu